صاحب السؤال هذا ملك استجوبتان إن سأكسون تيمبو إن مرة دايركتان إن أرسنال رنتي أرتا جيم كا إن بيتفول جيم رنتي إن لكن محاربة مارك صاحب هذه قاسك إن اللو ذا شرعي عصوب صوب بحي الوسو كريه برمير ليجا وحن جروه ما أرسنال كليو قبتها ما أنتم محاربة إنا وحيد إنتسو إنه شرعي عن ضد كليو وقبته وعاقل دري ميسا بلوليجا قولها لو هذا أم يالو لهانين haddii aad balooli kick aad ama taabato ayadoo refereerig foul axmal dhigo waa sax waxaa leedahay yellow waa clear waa sharciga cusub lagu soo daray cayaarahay ka mid tahay okay balooligan haddeer kan khalad ma yahay mase maahan mala dhihi karaa balooligan waa yellow leeyahay sababtoo ah ninka cayaaryahanka Man City wuu ki garaya kubadda so already wuxuu leeyahay yellow waa inuu sharciga qabtaa marka waxaan rabaa inaad wax yar aan ila wadaago Same thing here. Does he delay a restart? Is he passing the ball back to an Arsenal player? That's what Michael Oliver's verdict was. Wow. Emerson? Well, no, he isn't there because where Rice was literally standing there. I mean, if you can't pass it to Rice, he should be playing football. So he's kicking the ball away, in my opinion. Look, Rice is there. And he's kicked it to there. No, but the referee is pointing back to where the foul was. Yeah, but and then he's pointing to where Rice is, and then Rice stands still, doesn't move. I mean, we got again. Look. Does he delay a restart? Is he passing the ball back to an Arsenal player? That's what Michael Oliver's verdict was. Well, no, he isn't there because where Rice was literally standing there. I mean, if you can't pass it to Rice, he should be playing football. So he's kicking the ball away, in my opinion. Look, Rice is there. And he's kicked it to there. No, but the referee is pointing back to where the foul was. Yeah, but and then he's pointing to where Rice is, and then Rice stands still, doesn't move. So, waxaan garowaayay sharcigan cusub ma already wuxuu qabtaa Arsenal oo qabtaa sharcigan. Marka meesha waxa ku cad inuu 3 dhibcood oo clear ah naga sii daayay refereegan. Marka anyway waxaan leeyahay congratulations maadaama gurigoodii ay baraajo ku heleen runtii anagoo one man down ah runtii game fiican aan soo bandhignay inkastoo maaragtay ciyaaryahankeena ama playerska naga mid ah oo maaragtay uu qaatay asagoo yellow kalena balooliga yellowgan soft oo ahaa runtii oo ka wareegi karay referee runtii waa ma la dhihi karin mataqaanaa qalad weyn kuma yeelan karin inuu yani oo ka noqdo sansiina yellow waa macquul laakiin okay ninkan kubad wuu ki gareeyay lama siin yellow ninkan kubad wuu ki gareeyay wuxuu qaatay yellow sharcigeed cayaartii half time ku xayra ka dhiman tahay waman dhow ayaa maaragtay runtii gurigeeda Man City ku celi meesha waxaan proof gareeyay in maaragtay Man City qaban karo horena idinku sheegay laakiin maanta ardaygeena naga badiyay waxa naga sii badiyay refereegeena waxaan leenahay in hambalyo marka waa idin tusay inay Man City waxba ahayn كفايدست وحنا هلا يا كوحاو سيدا جلسي iyo ليفربول يا laga faa'iideystay leedahay Man City waa idin tusnaa xataa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh taageerayaasha Arsenal always Arsenal always